asalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada channelka aada u mahadsantihiin kommentiyadiina waa akhriyay su-aalaha marka aada iigu soo noqnoqdo waxaa waaye ma nooga sheekeyn kartaa caruurta aanan wax maqlaynin ama aan dhageysanaynin sidee ula dhaqanaa marka clipkan videogan insha allah wuxuu idin sharaxi doonaa markii caruurta ayna ku dhageysanaynin waxyaabaha iyo qaababka aa u mari kartid inay insha allah ku dhageystaan inay caruurtana dhageystaan goolka aan rabna inaan gaarno waaye inagoona ku qaylinin anagoonan la dilin iyadoon la bahdilin marka insha allah waxaa muhiima horta adiga waalidka ee hooyada ah adigoo cunto karinaynin adigoo guri nadiifinaynin adigoo howl kala haynin adigoo taleefon ku hadlaynin inaa caruurtaada hor fariisatid waa inaa hor fariisatid qofka aa la hadlaysid wejigaagii wejigiisa inay is hor imaadaan indhihiina inay isku soo horjeedaan muhiimada taas waaye discipline horta ma uga sheekaysay anigii adiga sidaana iskula dhaqmaynaa sidaana rabaa inaa iiga fahantid sidaana rabaa inaa kugu sheego da' kasta oo jiro ilmahaaga waxaa ula hadashaa like adigoo la hadlaysid qof adult ah qof weyn oo kale markaa sidaas ula hadashid wuxuu dareemayaa respect inaa siisay because haddaa u aragtid aniga ilmahan mar dhow wayba korayaan qof weynay noqonayaan then waa inaa u diyaarisid qaabkay u noolaan lahaayeen midaasna waxaa muhiim ka ah number one communication fiican inuu haysto ilmahaaga waxaa rabaa inaa idin siiyo example yar examplekaas soo sameeya insha allah then ila soo socodsiiya inay idin shaqeysay inaa ku guuleysateen iyo in kale marka let's say haddeer waxaan kasoo qaadaynaa meelaa u socotiin waa bixi rabtiin soo hebel aa u waceysaa hebel hooyo waxaa rabaa inaa kabahaaga gashatid and then waa u sugaysaa waa ka aamusaysaa hebel maku dhageyste okay hadduu ku dhageysto waa sida la rabay alxamdulilah then waaba baxday haddii laakiin uuna ku dhageysanin hebel waa hor fariisanaysaa waxaa leedahay ma ku dhihino kabaha gasho because inaan baxno waaye marka waa fiirinaysaa maku maqlay maku fahmay waxaa ka waday ma fahansan yahay sababta loo baxayo ma fahansan yahay sababta kabaha loo gashanayo ma fahansan yahay hadday tahay uu ku fahmay then waa weydiinaysaa ma i fahantay waa ku fahmay then sidii aan rabtay wuu sameynaya insha allah waana ka arkaysaa inuu sameynayo because hadalkaagu dhageysanayo haddaa ka aragti inuuna sameysanaynin sidii aad dhahday waxaa leedahay hebelow waa kuu sheegay maadan sameynin time u siisid insha allah waad ku liibaanaysaa marka waxaad xisaabsamaydaa sidaan oo kale markaadanba meel u soconin just banaanka xitaa inaad la soo cayaartid markaa rabtid oodan balan lahayn then waxaa arki kartaa hadhowti balan markaa leedahay meelo muhiim aa leedahay oodan ka daahi karin ilmahaaga kuu tarayn garaysan ciyaalka waqtiga la geliyo waxay noqdaa like ilmo diyaarsan like okay banaanka marka la socdo aadaabay u socdaan gaariga marka la saaran yahay aadaabay u saaran yihiin jidka marka la socdo aadaabay u socdaan marka insha allah ku celcelinay u baahan tahay ciyaalka haddii ayna ayagoo yaryar aan sidaan lagu bilaabin waxay ku weynaanayaan inaa hadalka ku celcelisay u bartaan hadalka inaa adiga mararka qaar kaa maqlin especially markay dad kula joogaan ama meel kala joogtid aan gurigaaga ahayn inaana caruurtaada ku dhageysanin waa wax aada u dhib badan inay ogaadaan waaye aadaabta inay ogaadaan waaye disciplineka inay ogaadaan waaye waxa la dhahayo inay maqlaan waxaa waaye wax anaga aan u baahannahay inaa caruurteena hadda intay yarar yihiin inaan kula dadaalno wayna nooga mahad celin doonaan markay weynaadaan soo ciyaalka aan u duceyno insha allah ilaahay ha noo fududeeyo intii aana haysana ilaahay ha siiyo intii haysatana ilaahay ha u barakeeyo marka homework hadda idin soo dira waxaa waaye inaad soo samaysin qodobada hadda idin soo sheegay then comment iisoo qor hoos ma idin shaqaysa ma ku guuleysateen insha allah waa idinka warsugaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu